qofna laba nafood iyo qulukayda ma laho kuma dheera qayrkaa qofnimada in kaa maqan hadduu qiimo leeyahay adna qaali baa tahay qadarkiiyo nasiibkana eex laguma qaybine qalinkiyo wixii maqan qoraal waad u simantiin qorshe yeela meel mara fikir qaado oo fuli qarnigaad ku nooshahay haddii aanad qamarkiyo qorraxdiisa noqon karin ha ka qadin warkiisiyo qisadiisa beritee taariikhda laga qoro qofka muuqda uu noqo eebow labadii i bilay aabbiyo hooyadii i dhalay siday amba ii korsheen rabbow adna iigu dhowr dharaar weeyaan ifkuye jaliil ha i oofsanuun anoon weli gudin abaal axsaantay ii faleen rabbow ha ii dilin xogteeda xigmadda uunkiyo abuurta anoon xaallayn salkeeda rabbow ha ii dilin xumaanba dunuub xilli aan ku jeedo xaq weeyee dhimashadayda anoo xadhiggaaga haysta tasbiixdana xoojinaaya anoo xamdi kuu naqaaya sujuuddana kugu xusaaya xaggaaga rabbow u jeeda igeelkiyo xabaasha واحبب من شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل وعز المؤمن استغناؤه عن الناس